بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه رئيس وزراء ku-xigeen nada golaha wasiirada halkan fadhiya xildhibaanada bahweynta saxaafadda waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan horta waxaan u mahadcelinayaa horta golaha wasiirada hawshii iyo waxqabadkii 6 bilood soo dhaafay waxa la ogayahay oo mar walba aan ka hadalnaa inaan ahayn team wada shaqeeya oo isgarab taagan oo ummadda u shaqeeya waxaan kaloo mahad u celinayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed guulaha ay ka gaareen howlgalladii waayahan ka socday magaalada Muqdisho iyo sida ay uga xoreeyeen qolada huwanta ah maxaan ku raahdaa horarka ah ee shabaab waa ku mahadsan yihiin waxay muujiyeen wadannimo daacadnimo iyo howlkarnimo iyo geesinimadii lagu yaqaanay ay muujiyeen waa ku mahadsan yihiin iyo guud ahaan shaqaalaha dawladda guud ahaan hawshii iyo waxay qabteen 6 bilood la soo dhaafay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee muujiyay maxaan ku raahdaa unity iyo maxaan ku raahdaa solidarity wax la yiraahdo ama midnimo oo ay taageerayaan xukuumadda uugii la soo dhaafay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxay muujiyeen Soomaalinimo waxay muujiyeen qarannimo waxay muujiyeen in ay maxaan ku raahdaa ay u soo jeedaan ama ay diyaar u yihiin inay dawladooda taageeraan ee tusaan shucuurtooda iyo taageeradooda xukuumadda oo ku mahadsan yihiin saad la socotaanba bariyahan waxaa socday hawlo ku taxalluqa khilaafiyo 2 bilood hadda ugu dambeysay ay ku soo gabagabowday shirkii hadda Kampala oo ay noqotay in la yiraahdo si hawshii iyo khilaafkii uu dhamaado waa in xukuumaddu isbedesho ama la bedelo waxaa noo qornaa ama nagu habboonaa ama loo baahan yahay sameyn 2 arrimood in haddii khilaafkii Soomaaliya lagu yaqaanay xukuumadihii la soo dhaafay inay hor u socdaan oo aan danaha ummadda Soomaaliyeed aan la fiirin ama aan la tixgelin iyo in aan waji cusub siyaasadda Soomaaliyeed aan ku soo biirino oo ah wax la yiraahdo tanaasul iyo in la fiiriyo shacabka Soomaaliyeed danaha shacabka Soomaaliyeed بعدما عالمكي Soomaaliya fikradaha laga qabo ay tahay inay tahay meel aan khilaaf ka dhamaanin maxaan ku raahdaa inaba hayraatay mas'uuliyiintu ay ka hormariyaan danahooda danta guud waxaan istusay in aan culture-kaas aan bedelo ama aan bedelno oo ah in loo baahan yahay la tanaasulo in loo baahan yahay danaha ummadda Soomaaliyeed in laga hormariyo maxaan ku raahdaa maslaxadda shakhsiga ah in danaha guud laga hormariyo wax walba taasna waxay keenaysaa in sacrifice la sameeyo ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan in ay halgankooda iyo shucuurtooda iyo taageeradooda xukunka ay sii wadaan inaba ha yaraatee halgankooda aysan dhimin annaguna aan niraahno xukuumaddu waxba kama qabto in ay maqasho maxaan ku raahdaa shacabkeeda tanaasulna ay samayso si khilaafka lagu yaqaanay Soomaaliya maxaan Soomaalida maxaan ku raahdaa madaxdeeda lagu yaqaanay in la joojiyo oo la furo waji cusub saasoo tahay waxay noqotay marka in aan fiiriyo marka sidee hawshu ku socotaa marka khilaafkan ku yaraadaa shakhsiyaadka la yiri arqalad bay ku yihiin ama caqabad bay ku yihiin xukuumadda ama jirtaanka dawladda sidee looga saaraa meesha waxa go'aan lagu gaaray ama aan go'aan ku gaaray oo aan maxaan ku raahdaa aan ku hadlay in xukuumaddu shaqayso ay sii socoto laakiin shakhsigu for example anigoo kale waa xanuunsan karaa waa dhiman karaa wax baa igu dhici kara laakiin in mabdii aan bilawnay iyo shaqada wanaagii aan bilawnay oo ummadda Soomaaliyeed 6 bilood hadda la soo dhaafay aan tusnay inay socoto inaba hayraadkiis istaagin waxa compromise lagu galay marka in xukuumaddii ay shaqayso oo dadkii shaqeeyay oo team effortigi bilaabay inay socdaan oo ay shaqeeyaan oo inaba hayraatee aysan gelin wax hakad ah labo tan labaad oo aan ku tanaasulay waxay tahay in shirkii wixii ka soo baxay accord-kii Kampala Accord wax laga bedelo si wanaagsan loo qoro taas oo aanan marnaba ka hormaanin ama shaki ku abuureynin
qaarnimada Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed bariyahan dhan ay ka mudaharaadayeen ayna ka biyadidanayeen waxyaabaha ku qoran akoodkaas marka in laga bedelo wax alla wixii shaki keeni kara ama dhaawici kara ama dadku u maleeyeen inay dhaawici karto qaarnimada Soomaaliyeed laga saaro taasna waa la gaaray marka hadde meesha waxa weeye anigu baa meesha ka baxay tiimkii wali waa joogaan waa shaqeynayaan akoodkii Kampala oo ummadda Soomaaliyeed kiciyay oo ay u arkeen inuu yahay mid maslaxad Soomaaliyeed aanan horumarinayn isna in la ogolaaday in wax laga bedelo wax alla wixii shaki keeni kara aniga tayda marka go'aan waxaan ku qaatay marka in aan dawladda la sii shaqeeyo gacan aan ku siiyo shacabka Soomaaliyeed halgankii ay bilaabeen inaan ku sii xoojino in aanan 18 kan wasiir iyo wasiir ku-xigeenadooda iyo wasiir dawlayaashooda kaliya aan lagu haleyn iyo madaxweynaha iyo prime minister kan lagu haleynin hawsh ay tahay hawshan hawl Soomaaliya dhan u taala wadankeena dhibaato badan buu maray shacabkeena waa dhibaatoodeen in guud ahaan anagoo isku duuban oo gacmaha haysanna aan ka saarno dhibaatada dalka haysata waad mahadsantihiin wada shaqayntii wanaagsaneed oo noo dhaxaysay 6 bilood insha Allah waxaan hubaa tiimkii aan aqaanay hadii hawsha wadaan insha Allah inay wax ka wanaagsan ay sameyn doonaan intii aan bilownay waa mahadsantihiin anu ma tagin ma fogi waa joogaa taladayda iyo wax alla wixii aan tari karo diyaaran laahay qof walba Soomaaliyeedna waxa laga rabaa inuu kaalintiis qaato waa mahadsantihiin